dhegaystayaal dhammaadkii qarnigii 19aad goor loo malaynayo ayaa miyiga magaalada Berbera waxaa ku geeriyooday nin la oran jiray Xirsi Cilmi Goolle oo malaha aad loogu hanweynaa bulshaduna ay nin horaad u tiqiin. warkaas naxdinta leh ayaa markii loo soo sheegay waxaa si gaar ah uga murugooday Cali Jaamac Haabiil oo ahaa gabya ay xigto iyo wadayba ahaayeen. dabadeedna wuxuu Cali geeridaas ka tiriyay tix baroora oo uu ku taxay 6 tilmaamood oo wanaagsan in Xirsi wada lahaana uu dhab u rumaysnaa. waa tixdii go'aanaya mooyi uu dhaxtaalkeedu ahaa ee waayadii dambe gabayada caanka ah ee baroorta ka mid noqotay. 6dii tilmaamood ee go'ashadooda uu Cali la gami waayay waxaa ka mid ahaa geesinimada, gar aqoonta, dulqaadka, fardafuulka, deeqsinimada iyo marti iska xilsaarka. wuxuu tixda ku bilaabay arar laga garanayo in baroortu ay ka dhab ahayd, dareenkiisana uu ka rur sheegay. galgaladkii xalay iyo faaraxow gamaan la'aantayda gogoshaan ku jiibsaday hurdada, goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gowska uga daayay, dar guryii ka yimi baa warbaas iila soo galay ee geeridii Xilsay sheegayeen, gacal hawaayeene gablamooyin waxay ii wadeen guuldarri iyo hooge. gabbal baa u dumay reerihii galiga boocyiile, abidkii rag waa go'i jiraye tanise waa gowe, 6 xaloo u wada gaar ahaa go'an ayaa mooyi. tuducii haddaba uu ku soo qaaday martida reeraha timaada sidii wacnayd ee Xirsi uu ugu xilqabi jiray ayuu ku yidhi: gab hadday martidu soo tiraa goodhu nala joogo, godka lagu janneeyow hadduu goosan la carraabo, garabsaar rag weeye hadduu gogasha soo daadsho, gasiinkii la soo dhigay haddaad gal iyo daad moodo, bakhayl bay isgamiime hadduu gaarka ka qoslaayo, godolkuu ku haasaawin jiray go'an ayaa mooyi. wuxuu leeyahay hooyo ku go' martisoorkiisu ma ahayne mar walba Xirsi waxa uu bixinayo raalli buu ka ahaa, weliba wuu ku raaxaysan jiray. taasna waxaa laga garan jiray qosolka iyo haasaawaha uu martida ku jalbeebiyo intay shaaribada kula jiraan xerihii uu u soo dhigay ee daribtu ka buuxday iyo doobiyadii caanaha ahaa ee xoortu ka saraysay. waa kaas martisoorka wanaagsan siday Soomaalidii raacatada ahayd u tiqiin. Xaaji Axmed Fiqi oo ilka dahab ku magac dheeraa wuxuu ahaa gabyaa reer Galinsoora oo waagii uu noolaa bartamaha dalka si aada looga yaqiin. siday caadada maansayahanadu u badnaydna haweenay uu markaas guursaday ayuu u tiriyey gabay dheer oo uu ku waaninayay, isla markaasna uu anshigiisa ku barayay. arrimihii uu kula dardaarmay oo badnaa waxaa ka mid ahaa inay u roonaato martida oo kolkuu joogo isagaaba joogee kolkuu maqan yahay aanay socotadu reerkiisa ku hungoobin. si gaar ah wuxuu ugu adkeeyey wadaadada qur-aanka afka ku haya inay fadhiga uga kacdo oo berri ka maalin aysan ku sheekayn reer ilka dahab inay soo mareen waxna aanay ka soo dhadhamin. wuxuu yidhi: qaamowraan waa inaad martida qurux u soo dhaaye, waa inaan qaraabo iyo xidid kaa qalgodahayne, waa inaan culimada qadsani qoyska soo marinee qaariga markaad aragto waa lala qushuucaaye, qadar loo karsiyo neef la qalo waa qamacadaane, hala quursan qadow caanaheed qabax yarood hayso, aniguba qorqode ma ihi oo kuuma qayb xumiye, adna qiimilay iyo ahow qaafadii dumarka buu yidhi. waxay odhan jireen muudalku ma xishoodo, waxa dadka kale ay dhaqankiisa ka qabaanna dan kama yeesho. wax walba waxaa uga daran xogaaga uu haysto qayb ka midihii inay gacan kala gasho. waxay kala odhan jireen marka ay waxbixin joogto muudalka dadku uma kala socna,
waa qorqode oo afadiisa maamulka reerka wax ugama oggola. ceebtu ma karto oo qofka wax u galeen ama ku xil leh iyo midka aanay waxba isu ahayn waa isugu mid. si ay haddaba taas inoogu muujiyaan waxay soomaalidii hore inooga tageen sheeko maad iyo murugaba leh oo nin qaduuca laga sheegay. waxaa la yidhi habeen habeenada ka mida ayaa ninkan muudalka ah waxaa soo martiday sodohdiis, haweenaydii uu qabay hooyadeed. markaas buu ka seexday. islaantii oo ay calooshu gubanayso, islaantii oo cad caano iyo badartoona aan tan iyo xalay jidiiman ayuu waagii u bariyey. barqadii iyadoo xagga reerkeedii u hilhelanaysa ayaa waxaa la soo joogsaday qaduucii gabadheeda qabay ee xalay ka seexday. markaas buu yidhi, oo sodo xaggee baad u xirxiran tahay, ma naga tegaysaa? waxay tidhi, haa maandhe, waan socon. markaas buu isaga oo qadaadka xoqaaya cirkana kor u dhowraaya ku yidhi, oo sodo maad iskala kaaya joogtid, xalayba waxnaba aad yeelin. sow isku mar maad iyo murugaba ma aha. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga. waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.